السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليغا خالق دمانتين وإذن سلامي meel walbo adduunka aad ka joogtaan waa walaashiinu Maharuun iyo markaleetood please kanaalkayga hadaa ka hesho subscribe like commentiga dhiirigelinta waa xaqiina maantana waxaa inoo wada qiso cajiib ah qisadaas oo ka dhacda dalka Masar mar walba qisooyinka aan ka hadlo dumarka la dulmiyay ahayd maanta ragga waaye Samiir wiil yar ayay ku socotaa qisada sidan ayay ku bilaabanaysaa waxaa jira wiil la dhaho magaciisa Samiir iyo gabar la dhaho Nawaal Samiir iyo Nawaal markii isku meel ayay ka shaqeyn jireen Nawaalna waxay ahayd gabar hore loo soo guursaday oo garoob ah da'deedana 25 jir ayay ahayd Samiirna wiil aan hore u soo guursanin oo ahaa marka Samiir waxay ku sameysay gabadhii soo jiidasho siyaada ah markii wiilkii soo jiidatay wiilkii si dhab u jeclaaday Samiir wuxuu ka dalbaday inuu guursado guur ayuu ka dalbaday markuu guur ka dalbaday hayay tiri waa diyaar aan u hayna is guursano laakiin aroos boqortooyo ah ina ay dhigtidaan raba waayo yiri marka Samiir awood uma lahan inuu aroos u dhigo waayo shaqada uu ka shaqeeyo shaqo awooddaas iyo arooskaas laga sheekeynayo oo ka bixin kara ma ah waayo yiri deemanu raadsaday arooskii ay jecleed oo u dhigay sidii boqortooyo ah loo aroosay markii arooskii sidii boqortooyo looga dhigay haddana waxay tiri dalxiis waxa uu aadeynaa Yurub wadamada Yurub dhan dalxiis oo ku soo wareejiyay wuu celshay wadankii ku celshay wadanka markuu ku celshay haddana waxay tiri dahab ii gad gurigan bedel lacag isii adiga wax walbo wiilkii xujo maalin walba xujo aan dhamaanaynin u soo bandhigay asagana maya ma dhaho wuu siiya markii wiilkii deeman badan lagu yeeshay deemankii badnaa markii lagu yeeshay dadkii deenta ku lahaay maxkamad ay ku dacweeyeen maxkamadii waxay tiri niyo deentan bixi ama xabsi lagu geynayaa Samiir wuu baxay marka wiil saaxiibkiisa u tagay wuxuu ku yiri saaxiibow deemana la igu leeyahay hadda xabsiga la ii wadaaye badbaadiyo deen isii aan gadaalkaas iyo deemanka iskaga baxsho saaxiibku wuxuu yiri saaxiib ma awoodi waad ogtaa waxaan haysto laakiin fikrad naagtaada waxa dahab u gadaysay iyo wixii lacag aad siinaysa way haysatay ayada ka qaad ee badbaadi ku dheh wiilkii wuu soo laabtay gurigiisa imaaday xaaskiisa wuxuu ku yiri abaayoy dahabkan ii gad iyo waxaan haysadan deentan si aan iskaga mago ma yeetri lagama yaabo ani wax ku iga gadi maayo lacagna ma bahaayabo Samiir shiwo iska dhahay wuu fakaray marka dambe wuxuu ku fakaray xibnihiisa xibin kamid ah inuu gado kilidii soo gatay kilidii markuu gatay deemankii iskaga baxbixiyay markuu deemankii iskaga baxshay Samiir marka maadaama qof kilidii laga soo saaro oo yahay waxa ku bilaabatay jiro aan dhamaanaynin tabar daro gabadhii marka dambe waxay tiri saaxiibow nin tabar daran oo maalin kasta jiran uma dul qaadan karee iska kayfur Samiir gabadhii wuu furay hadda Samiir noloshii ka dhacday qof waxa waaye oo maalin walba iska jiran meelaha xataa waa laga yaqaanaa Masar qisada marka sidaas ku dhamaatay wayna qayaantay gabarta qayaano leeyahay marka qisada sidaas ku dhamaatay Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh